هاي جايز السلام عليكم وانا قاعد فتح ابراهيم ان حقا نقل سocotana waxa weeye in Somaltech fadlan hadad ku cusubtay oo markii kugu horeysay soo boqoto channelka subscribe saar videogana like asxaabtaadana la wadaag maanta waxaan ka hadli doonaa cashar kamid ah maxay yahay casharadeeni ku saabsan computerka shayada computerka ugu muhiimsan marba kaga hadinay waxaan ka soo hadalay CPU-ga iyo maxay yahay qaar kamid ah storage-da ama maxay yahay memory-da computerka ku jira waxaan ka soo hadalay ugu dambeeyay RAM-ta maanta waxaan ka hadlaynaa ROM mid loo yaqaan oo macnaha read only memory ah iyaduna waxa weeye mid kamid ah memory-da computerkeena ku jira iyo electronic devices-ka kale sida magaca ka arkaysid kaliya ta information ku jira memory-gan waad akhrin karaysaa uun ay waxba ka bedeli kari maysid oo wax uma lihid awoodda inaad wax ka bedesho kaliya ta uun waad akhrin karaysaa tusaale ahaan oo kale markaad doonaysid read inaad ogaato iyo write inta badan waxaa loo isticmaalaa computerka markaad joogtid waxa weeye ama technology-ga shayga ama maxay ahayd memory-ga marka lagu dhaha memory-ga waxna waa lagu write gareeyaa macnaha readna waad ka samayn karaysaa macnaha waxa weeye information baad ku shubi karaysaa informationkaad ku shubtana waad ka akhrisan karaysaa hadduu yahay read and write tusaale ahaan kale CD-yada markaad iibsanaysid CD-yada qaar waa read only qaarna waxa weeye read and write macnaha saas oo kale ayay tanna ku samaynaysaa oo kaliya ta informationka kugu jira waad akhrisan karaysaa waxba ka bedeli kari maysid haddaba maxay ahayd sidoo xagan kugu sii sheegayo wuxuu ku leeyahay informationka ku jira roomta lagama bedeli karayo laakiin haddii wax laga bedelo way adagtahay si aad u adag ayaa wax looga bedeli karayaa ama gebi ahaanba waxba laga bedeli kari maayo roomta inta badan waxaa loo isticmaalaa firmware updateska in firmware-yada lagu update gareeyo firmware-kuna waxa weeye program ku jira computerkaaga ah oo maxay ahayd ku saamaxaya in new programmeska cusub computerkaaga loo shubo oo tusaale ahaan waxaad arkaysaa computerka marka doonaysid ku shubto maxay ahayd program cusub sida tusaale ahaan kale programming language-ka sida C++ oo kale ama C# oo kale wuxuu ku odhanayaa framework-gani ma aha framework loogu talagalay macnaha waxa weeye shaygii ku saamaxay computerkaaga device-kan iyo maxay ahayd isfahansiinaya maxay ahayd programka ku shubayso ayaa loo yaqaanaa framework-ka marka taasoo kale ayay macnaha updateskiisa ka qayb qaadataa sidoo kale waxaa kamid ah exampleska roomta ay leedahay tusaale ahaan oo kale video game console-ka kuwa loo yaqaano oo macnaha shayada soo gamemkii waxyaabahaas lagu ciyaaro waxay ku saamaxaysaa in aad maxay ahayd multiple systemska aad rangareyn karaysid ayay ku saamaxaysaa okay maxay ahayd waxaa kamid ah tusaale ahaan oo kale exampleska ay leedahay roomtu mid loo yaqaano electrically erasable programmable read only memory baa loo yaqaanaa ama EEPROM baa loo yaqaanaa waana ta computerkeena ku jirta taasi way ka duwan tahay maxay ahayd qaababka kale ay u shaqeeyaan roomtu waayo computerkeena ku jirta waxay awood u leedahay in data laga delete gareeyo sidoo kalena maxay ahayd lagu shubo macnaha read and write bay noqonaysaa macnaheedu way oo computerkeena ayay ku jirta waa ta computerkeena loo isticmaalo waxaana maxay ahayd la shaqeysaa computer BIOS-ka oo marka uu soo kacayo computerkaagu la shaqeeyo isaguna sidoo kalena ka dhigaya maxay ahayd computerka inaad u isticmaashid si aad u fudud maxay ahayd BIOS-ka macnaha waa basic input output systemka computerka marka isagana waynu ka hadli doonaa casharada soo socda waxa weeye BIOS-ku xagga saad ka arkaysid roomta ama computer BIOS-ka iyo roomtu same ayay noqonayaan marka maxay la eegayo marka xaggan waxaad ku aragtaa way ka duwan tahay buu ku leeyahay RAM-ta roomtu waa run way ka duwan tahay tusaale ahaan oo kale waxaan soo sheegnay oo nidhi waxaa jira loo qaybiya maxay ahayd storage-yada volatile iyo non volatile marka roomtu waa non volatile macnaha waxa weeye information-kaaga way kuu kaydinaysaa haddii computerkaagu dab uu leeyahay iyo haddaanu lahayn okay volatile-kuna waxa weeye sida RAM-ta oo kale oo uu kuwa information-kaaga ku haya inta uu computerkaagu dabka leeyahay su-aasha xagga hoose ku taalo wuxuu ku leeyahay RAM-ta xaggee baa laga helaa roomta xaggee baa laga helaa roomta waxaa laga helaa computerka marka la joogo weli waxaa loo yaqaanaa electrically erasable programmable read only memory-ga ayuu sheegayaa markuu ku leeyahay xaggee baa laga helaa computerka waayo taasuba computerka ku xidhmata waxaa laga helaa iyadii BIOS-ku waxay ku xidhan yihiin computer motherboard-ka saad ka arkaysid xaggan wuxuu ku leeyahay exampleska kale waxa devices kale waxay yeelan karaan
ama maxay ahayd expansion cardska waxay yeelan karaan iyaguna roomtooda ama eep roomtooda ayay yeelan karayaan ayuu sheegaya. marka cashirkeena maanta guud ahaan waxaan ku eegaynay roomta waxay tahay iyo waxay qabanayso. waa cashir aad u kooban oo ka sheekeynaya roomta iyo qaabka ay u shaqaynayso. guud ahaan waxa weeye roomtu waxa weeye qayb ka mid ah storage-ka deviceska nooc ka mid ah weeye oo information-ka lagu kaydiyo. information-ka aad ku kaydinsay kaliya aad akhrisan kartid laakiin waxba aanad ka bedeli karin ayaa loo yaqaanaa roomta. waxaanay ka qayb qaadataa computer BIOS-ka marka isaguna ka qayb qaata maxay booting-ka markuu computer soo kacayo ayay ka qayb qaadataa. sidoo kalena maxay firmware updates-ka ayay ka qayb qaadataa. marka guud ahaan intaas waxa weeye shayadii ugu muhiimsanaa roomta. marka cashirkeena maanta intaas buu ku ekaanayaa. casharka kan lamid inta ku kulmayno maxay waa sidaas iyo nabadgelyo. casharka dadka hesheena asxaabtaada la wadaag sidoo kalena channelka kusoo biir. waa mahadsantiin.